madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa kormeeray iskuulka qadiimiga ah ee Galgaduud ee ku yaala magaalada Dhuusamareeb. Mudane Cali Ciid waxaa kormeerka ku heliyay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Deeq Cabdi Falko iyo howlwadana ka tirsan wasaaradda. Ujeedka kormeerka ayaa ku saabsanaa qiimeyn indhaindhayn xaaladda iskuulka intii uu ku guda jiray waxa uu xog waran la xiriira marxaladihii uu soo maray iskuulka ka dhigaystay mas'uuliyiinta wasaaradda maamulka iyo macallimiinta iskuulka. madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa ballan qaaday horumarinta waxbarashada Galmudug isla markaana waxa uu sheegay in si degdeg ah looga soo jawaabi doono baahiyaha ka jira halkan oo ah iskuulka Galgaduud. ardayda sharafta leh ay ka muuqato qiirada wadaninimo dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaam bacdigeed farxad aan la soo koobi karin bay ii tahay inaan maanta idin soo booqdo hortiina aan taaganahay aan u kurgalaya xaaladiina aad waxbarasho anoo dareemaya inaad duruufo adag wax ku barataan iskool mataqaanaa aan dayactirkiisu aad u wanaagsanayn laakiin taariikhi ah. adduunka iskoolada taariikhiga waa la ilaalsadaa, waa taariikh umadeed. iskoolkan Galgaduud madax badan oo dalka soo martay ayaa ka baxay, hadday ahaan lahaayeen saraakiil ciidan iyo hadday ahaan lahaayeen madaxweyneyaal iyo ra'iisul wasaareyaal waddanka soo maray. sidaa daraaddeed waxaa booqashadayda koowaad aan iskoolkan ugu yimid waa inuu yahay iskool taariikhi ah kana qiimo badan yahay iskoolada kale. ilaahay hadduu yiraahdo waxaan idin ballan qaadayaa muddada xilka aan hayo aan halkan joogo inaan mar walba idin soo booqdo tababaro kala gedisan oo xafiiskayga iyo wasaaradda oo iskaashanaysa ay mataqaanaa idin siiyaan. tababarkii ugu dambeeyay hadda la idin siiyey waa mahadsantahay. tababarkii ugu dambeeyay la idin siiyey tababar aad u muhiim u ahaa maadaama galaaskii ugu dambeeyay aad ku jirtaan dugsiga sare inaad barataan qaabka shaqooyinka iyo mataqaanaa loo raadsado. insha Allah maalinta berriyaana shahaadooyin waxaad soo barateen oo tababarkaas la idin siin doonaa certificate insha Allah. wasaaradda waxbarashadan halkan uga mahadcelinayaa shaqo fiican ay soo qabatay. iskoolo badan oo la dhisay, kuwa badan oo hadda wadada ku soo jira sanadkan gudihiis waxaan maleynayaa qorshaha waxaa noogu jira ilaa iyo 6 iskool oo cusub oo la dhagax dhigayo, kuwii jirayna la tageynayo. dhawaan waxaan ugu soo wajahan wasiirkii waxbarashada federaalka Goodax Barre. waxaan rajeynaynaa inaan halkan idinku keenno suu iskoolkan ugu dayacto. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka codsanayaa inaan niyad jabin dadaalkiina halkaas aad ka sii wadaan. markaad qalin jabisaan insha Allah saddexda arday ugu horeysa aniga ballan qaadaya inaan shaqo siinayo. xilligan oo la joogo casri fursadiinu aad ayay u badan tahay. dadkii idinka horeeyay 70-meeyadii iskoolkan dhiganayay oo haddana intay dhammaysteen guul ka gaaray waad ka fursad badan tihiin. haddaad iskoolkan dhammaysataan inaad guul gaartaan in yar bay idin jirtaa, sababtoo adduunku waa casri, wax badanna waa ku soo kordheen. marka marnaba yaan la niyad jabin, iskoolkiina wata garabkiinaan taaganahay. wixii baahiyay jirana insha Allah annaga iyo wasaaraddu iskaashanayna waxaan isku dayaynaa inaan xalino. maamulka waa la soo xiriirinaa, qalabaad iyo wixii kale oo iskoolkan u baahdo garabkiisaan taaganahay. partner baan insha Allah la noqonaynaa. aad baan idinku mahadcelinayaa sida qiimaha badan ee wadaniyada idinku jirta aad ii soo dhaweyseen. madaxda Galmudug waxa ay hortabinta koobaad siinayaan dejinta siyaasadaha adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada, daryeelka caafimaadka iyo nabadgelyada. Cabdulqaadir Afrika, dalka TV, Dhuusamareeb.